بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان كوبان waxaanu ku eegi doonaa dadka salaada tukada iyo noocyada ay u kala qaybsamaan ma ogtahay dadka salaada tukada inay shan nooc yihiin ama shan qayb yihiin ma ogtahayse adigu qaybta aad tahay haddaadan ogeyn barnaamijkan ayaad ku ogaan doontaa shaykhulislaam ibnulqayim wuxuu leeyahay wannaasu fi salaati calaa maraatibi khamsatin dadka salaada tukada shan qayb ayay u qaybsamaan qaybta koowaad waa qayb gaabisay oo naftooda dulmisay talow kuwaasi waa kuwe waa kuwa aan si fiican u weysaysanin salaada aan wakhtigeeda ku tukanin marka ay tukadaana galabgalab ku tukada oo rukuucda iyo sujuudda aanan mataqaanaa si fiican oola imaanin qaybta labaad wuxuu leeyahay waa kuwo ka yara duwan oo waxay ilaaliyeen salaada wakhtigeeda ayay ilaaliyeen iyo xuduudeeda isla markaana si fiican ayay u weysaysteen markay tukanayaanna si quman ayay u tukadaan laakiin kuwaasi waxaa nafta u keenay oo ajirkoodii iyo salaadoodiiba la haray waa markay allahu akbar yidhaahdaan waa isla sheekaystaan oo waswaas iyo shaydaan iyo adduun iyo xisaab ayay galaan qaybta saddexaad wuxuu ku leeyahay waa mid ilaaliya salaada xuduudeeda iyo arkaanteeda wajaahada nafsahu fii dafci alwaswaasi walafkaar naftiisana wuxuu kula dagaalamayaa uu ku tarbiyanayaa inuu la dagaalamo waswaaska iyo afkaarta xun wuxuu ku mashquulsan yahay inuu cadowgiisa la dagaalamo si uusan salaadiisa uga xadin sheekha wuxuu leeyahay kuwaasi salaad iyo jihaad ayay ku jiraan allahu akbar waa kuwa dadaalaya oo raba inay salaadooda ajir shaqaystaan qaybta afaraad wuxuu leeyahay sheekha waa kuwo marka ay salaada u kacayaan dhammaystira xuquuqdeeda iyo arkaanteeda iyo xuduudeeda isla markaana qalbigooda ku adkeeya siday mataqaana ugala imaan lahaayeen waajibkan oo ilaahay subxaanahu watacaala u raaligelin lahaayeen iyo sida ugu fiican ugu qurux badan ay u tukan lahaayeen qaybta shanaad qaybta afaraad in badan ayay kala mid tahay laakiin waxay dheer tahay markay ilaahay subxaanahu watacaala u tukanayaan ilaahay ayay ishorkeenaan waxay u tukadaan sidii ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala hortaagan oo la hadlaya qalbigoodana ku wen yahay waxay qalbigooda iyo ishoodaba ku quruxsanaysaa ku raaxaysanaysaa salaada ayay ku raaxaysanaysaa sheekha wuxuu leeyahay qaybta koowaad waa qayb dambiilayaal ah isla markaana waxay mudanayaan ciqaab ayay mudanayaan qaybta labaad waa qayb la xisaabinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga yaabaa inuu ajir iyo ka siiyo maadaama inta ay gaabiyeen loo xisaabiyo inta kalena laga ajir siiyo qaybta saddexaad waa loo dembi dhaafaya allahu akbar qaybta afaraad ayada ajir ayaa la siinayaa qaybta shanaad oo ugu sarraysa oo la rabo qof walba inuu yoolkiisa noqdo waa qayb ilaahay subxaanahu watacaala u dhow maxaa yeelay lianna lahu nasiiban wuxuu nasiib u yeeshay kuwa laga yeelay ilquruxsigooda salaada laga yeelay faman qarat caynuhu bisalaatihi fi dunya qofka ay salaadiisa ishiisa ku quruxsato qalbigiisa ku quruxsato salaadiisa adduunka qarat caynuhu biqurbihi min rabbihi maalinta qiyaama wuxuu ku ildoogsanaya oo ku quruxsanayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhowaado wa qarat caynuhu aydan fi dunya buu sheekha leeyahay ishiisana sidoo kale waxay noqonaysaa il ku ildoogsata adduunka qofka ilaahay subxaanahu watacaala ku ildoogsado ilaahay jeclaadana qof walba walaalayaal wuu jeclaanayaa qofkaan ilaahay subxaanahu watacaala ku ildoogsanin oo aan salaada jeclaanin oo aan mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacaala siduu ugu dhowaan lahaa ka shaqaynin adduunka ciriiri ayuu ku noqonayaa haddaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan salaada ku dadaalno inaan ilaahay subxaanahu watacaala isxasuusino bila aadan baanu nahay waanu gafaynaa walaalayaal adduunkan waanu ka tegaynaa qofku waaraya ma jirto salaada waa muhiim haddaadan tukan jirin maanta tuko walaalaha kala gaarsii isla markaana ku dadaal inaad noqotid qaybta ugu fiican ee salaada la timaado haddaadba tukanaysidba ilaahay subxaanahu watacaala ishorkeen shaydaanka iska naar oo marka aad waswaas ku yimaado ilaahay subxaanahu watacaala ka mangal wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu